guriyaan waxaan u soo tagnay inaan qarannimada aan kor u qaadno aan dadaalno sidaa darteed waxaan ku sugnaa hawsheeni oo meeshan aan u imaano furunta waana shaqadii nala soo idmana wali way noo socotaa waana sii wadi doonaa insha Allah muhiimadda koowaad halkan aan u joogno waxa waaye in shacabkeena jooga magaalooyinka ay ogaadaan in wiilashoodii ugu jiraan doorka furunta leeyahay ugu joogaan ay u joogaan difaacooda dhintaasa dhaawac meel dhulkaygo dhiigayga waan u weynayaa dhulkaygo dhiigayga ciidale dhaxalkeena ummadale dhalashadeena Soomaali ciidamada qalabka sida waxay lafdhabar u yihiin jiritaanka dawladda difaaca madax banaanida dalka iyo ilaalinta badqabka shacabka Soomaaliyeed waxay u xil saaran yihiin ilaalinta xuduudaha dalka ee bariga badda iyo cirka la dagaalanka kooxaha argagixisada ah kooxaha nabaddiidka iyo cadawga shisheeye ee qatarta ku ah dawladnimada Soomaaliya wadamada caalamka ma nagala mida maanta cadawgan ma qabaan raaxay ku jiraan iyaga dalka hor horeysta annagana waxaan rajaynayaa marka canaasirta hay fuliyiinta ay buumiga xodo cararay inta ay Soomaaliya meel kamid ay joogan saana u daba taagnaynayna maalinka ay ka xorowdo Soomaaliya cadawgan ay nabad noqoto ay qof walba tartiib gurigeeda lug iyo gaari wax u baahdo ay ku tii karto ciidanku waa garab iyo gaashaan wuxuuna astaan u yahay midnimada iyo awoodda dawladda Soomaaliya qaybaha kala duwan ee hay'adaha difaaca iyo amniga ayaa si isku xiran u wada shaqeeya iyadoo mid walba uu leeyahay waajibaad gaar ah oo kaabaya kan kale askarta iyo saraakiisha maanta taagan xiriyaha fariisimaha saldhigyada iyo furimaha dagaalku waxay garbaha ku sidaan culayska amniga iyo sharafka ummadda habeen iyo maalin waxay u taagan yihiin inay gutaan waajibkaas culus waxa uu ka turjumayaa aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo sida ay dawladdu uga go'an tahay in ciidanka Soomaaliyeed mar kale noqdo xuduud qaran oo difaacda dalka sugta amniga kana xoreysa deegaanada ay ku harsan yihiin cadawga ummadda Soomaaliyeed ciidanka dhulka ee xoogga dalka ayaa hormuud u ah howlgallada ka dhanka ah kooxaha argagixisada iyo difaaca xuduudaha dalka ciidanka cirka ayaa taageeraya howlgallada militariga sahanka iyo dabagalka dhaqdhaqaaqyada cadawga halka ciidanka badda Soomaaliyeed ay mas'uul ka yihiin ilaalinta xeebta dheer ee dalka amniga biyaha Soomaaliya iyo difaaca khayraadka dabiiciga ah ummadda Soomaaliyeed markasta waxay ku seexataa dhiigiina iyo dhacaankiina ku hoyataa ku seexataa nabadgelyo ay ku joogtaa maanta tiya muujiseen dabcan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ballan u qaada shacabkan ballantu u qaadana waxay tahay inuu u dhinto u dhaawacmo say ayaga nabadgelyo u joogan waa ku sharfantihiin waa idinkaga mahadcelinaynaa dhanka kale ciidanka booliska ayaa lafdhabar u ah sugidda amniga gudaha hirgelinta sharciga iyo ilaalinta shacabka halka ciidamada asluubta ay ka shaqeeyaan nidaamka cadaaladda maamulka xabsiyada iyo dib u habaynta maxaabiista hay'adda sirdoonka iyo daba sugidda qaranka ayaa iyaduna ah indhaha iyo dhegaha amniga qaranka waxay hormuud u tahay ururinta xogaha sirdoon ogaanshaha iyo ka hortagga qataraha amni fashilinta weerarada argagixisada ka hor inta aysan dhicin iyo dabagalka shabakadaha cadawga xogaha iyo qiimeynta ay soo gudbiso hay'addu waxay saldhig u noqdeen qorsheynta howlgallada amniga iyo kuwa militariga ee lagu xaqiijinayo badqabka shacabka iyo xasiloonida dalka isku xirnaanta ciidamada qalabka sida ayaa abuuraysa awood amni oo midaysan taas oo door weyn ka qaadata difaaca qarannimada ilaalinta shacabka iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada ah ee qatarta ku ah Soomaaliya ciidanku waa saaxiibka bulshada waa ilaaliyaha qarannimada madax bannaanida iyo calanka ummadda Soomaaliyeed ee leedahay ilaalintiisa iyo dawladnimadiisa cudud iyo waxay muujiyeen wax cadawga ummadani uu maaragtay ka naxayo dadka Soomaaliyeedna ku farxayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku biiray ciidamada ee wiilal iyo gabdho isugu jira waxay doorteen waddo adag oo ay ku difaacayaan dalkooda waxay ka tageen noloshii ay la qaadan lahaayeen qoysaskooda iyo eheladooda waxay naftooda u hurayaan sharafka karaamada iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed dal aan ciidan xoog lahayn
dal sharaf leh maaha haddaad maqasho karaamo ummadeed waa xoogga iyo ciidanka ay ku xisaabtamayso iyadu leedahay waay habeen iyo maalin xilliyada adag ee roobka iyo qoraxda ciidamada Soomaaliyeed waxay ku sugan yihiin furimaha dagaalka iyo goobaha lagu hubiyo amniga iyagoo gudanaya waajibaad qaran oo ay u dhaarteen dhaarana shacabkeena Soomaaliyeed waa u dhaarana dalkeena waa u dhaarana diinteena waxay ka dhabeeyeen ballantii ay u qaadeen dalkooda taas oo maanta laga arkayo deegaanada badan ee laga xoreeyay maleeshiyaadka qawaaridta dowladii horumar iyo investment iyo dhismo ma heli karto ciidan la'aan mid kasta oo waxaas wanaagga ah oo dowladnimada horumarka maslaxadda ummadda nin kasta oo caqabad yar u dhigayahay waa cadowgan in laska qabto u baahan yahay cidda u carbisan oo u qaabaysan oo u qalabaysan waa guud ahaan ciidanka qalabka sida gaar ahaanna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed weliba markii wax weyn oo culays badan oo booliiska iyo waxa iyo ka tanbata markay yimaadaan inanka aad waa ayaga guulaha ciidamada ayaa ka muuqda magaalooyinka iyo tuulooyinka dib ugu soo laabtay gacanta dawladda halkaas oo ay shacabka ku naaloonayaan amni adeegyo dawladeed iyo rajo cusub oo mustaqbala sidoo kale caasimadda Muqdisho iyo magaalooyin kale oo badan ayaa maanta marqaati u ah horumarka iyo xasiloonida ka dhashay nafhornimada ciidamada Soomaaliyeed ciidamada qalabka sida waa astaanta dawladnimada Soomaaliya waa xuduudda difaaca jiritaanka qaranka waana tiirka lagu ilaalinayo madax banaanida iyo midnimada dalka inta ay jiraan ciidamadu waxaa taagan calanka buluga ah ee astaanta u ah qarannimada Soomaaliya geesinimada iyo dadaalka joogtada ah ee ciidankeenu ayaa saldhig u noqday dib u soo kabashada caasimadda iyo horumarka dalka oo dhan bulshada Soomaaliyeed waxay abaal weyn u hayaan geesiyaasha ciidanka qalabka sida haliyada dhabta ah oo naftooda u huray difaaca diintooda dalkooda iyo shacabka Soomaaliyeed si ay nabad ugu seexdaan mahadsanyihiin geesiyaasha ciidamada qaranka maanta geesinimada xirfadda iyo wadajirka ciidamada Soomaaliyeed waxay dunida tusaysaa fariin cad oo ah in Soomaaliya ay leedahay ciidan qaran oo awood u leh difaaca dalka ilaalinta shacabka iyo xaqiijinta mustaqbal amaana oo ay ku wada faani karaan dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed